kulan waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamida horjoogayaasha ururka al-shabaab oo bilaabay magangeliyo ay ka raadinayaan qabiiladooda si ay gabaad uga dhigtaan uguna dacwoodaan dawladda federaalka Soomaaliya madaxda dawladda federaalka oo shaacisay inaysan wax afisa lahayn madaxda ugu sareysa ururka al-shabaab codsigan ay soo codsadeen madaxda ugu sareysa ururka al-shabaab ay doonayaan in ay isku soo dhiibaan qabiiladooda oo halkaas ay magangeliyo ka raadiyaan ayaana ku soo aadaya xilli dawladdu ay wado carcar xoogan isla markaana kacdoon shacab uu ka taagan yahay gudaha dalka Soomaaliya laba arrimood oo sabab u ah isu soo dhiibista madaxda ugu sareysa ururka al-shabaab ayaan halkan idinku wadaagi doonaa howlgal ballaaran oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay saacadihii ugu dambeeyay qaadeen ayay ku soo bandhigeen in ka badan 250 ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ururka al-shabaab oo halkaas ay ku dileen iyagoo sheegay in howlgalkani loogu magac daray mid loogu aarahayo taliye ku-xigeenkii ciidamada kumaandooska ee Danam Xasan Tuure oo shalayta ku geeriyooday degmada Galcad ee gobolka Galgudud hay'adda NISA oo qaaday tallaabo uga sii daraysa xiisadii ka taagneed gobolka Gado xildhibaanada ka soo jeeda gobolkaasi oo gabi ahaanba laga mamnuucay in ay u safraan gobolka Gado xilli abaaro iyo waliba xaalad adag ay ka taagan tahay deegaanadii laga soo doortay haddaba maxay tahay sababta hay'adda NISA ay ugu diiday xildhibaanada deegaanadii laga soo doortay in ay ka dagaan oo ay u safraan gobolka Gado oo markaasi ah deegaan doorashadoodii iyo waliba dadkii ay matalahayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo heshiis qarsoodiya gaadhay kaasi oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku ogolaaday muddo kororsigii halka sana ee maamulka madaxweyne cabdicasiis laftagareen ay samaysteen mucaaradka oo si weyn uga hor imaaday dhabar jabna ku noqotay iyagoo filahayay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la safan yahay midowga musharaxiinta ee maamulka koonfur galbeed war culus ayayna ka soo saareen oo ku aadan heshiiska madaxweyne cabdicasiis laftagareen iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya beesha caalamka oo baaq u dirtay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni digniin adagna u dirtay taasi oo ku aadan gooni istaagii uu ku dhawaaqay maalmo koor ee uu sheegay in Puntland aysan wax awaamir ka qaadanaynin dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay tahay dawlad madax banaan qodobadaasi oo kuwa kale faahfaahsanaya daawadayaal warkeena kaga bogo doontaan hadduu eebba balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh ka codsanaynaa hadduuna soo gaadho muuqaalka like saara oo aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga oo nagu soo biira waan idinka mahadcelinaa la joogitaankiina mahadsanidin aynu ku bilownay 24 saac ugu dambeeyay waxa baraha bulshada qabsaday in madaxda ugu sareysa ururka al-shabaab ay doonayaan in ay magangeliyo ka raadiyaan qabiiladooda iyagoo la soo hadlaya isimadooda iyo waliba odayaasha dhaqanka taasi oo ay doonayaan in gabi ahaanba ay iskaga soo baxaan ururka al-shabaab arintani ayaana lagu macneeyay laba arrimood oo xasaasi ah taasi oo la xiriira in midda koobaad dawladda federaalku dagaaladii ay maalmihii ugu dambeeyay la gashay ururka al-shabaab ay gabi ahaanba kala go'doomisay isla markaana ururka al-shabaab ay ka qabsatay dekadihii iyo goobihii markii hore ay ka safri jireen oo uga bixi jireen dalka Soomaaliya dawladda ayaana go'doomisay isku socodkii gobolada ay ku kala safri jireen iyadoo gabi ahaanba gobolka kale uusan maanta aysan ururka al-shabaab iskaga safri jireen ciidamaduna ay xidheen marinadii waaweynaa ee ururka al-shabaab ay isku gudbi jireen iyaga dhaxdooda gudaha dalka Soomaaliya dhanka kale bilihii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf xoogan oo ka soo bilowday habqaybsiga awoodaha ururka al-shabaab iyadoo toddobaad ka hor uu geeriyooday madaxii ururka al-shabaab isla markaana mas'uuliyiintu ay isku khilaafsan yihiin cidda qabanaysa madaxa ugu sareeya ururka al-shabaab oo intii la aasaasay kooxdan khawaarijta ay ka soo dooran jireen qofka qabanaya madaxa ugu sareeya gobolada waqooyi ee Somaliland waana arinta iyadana sabab u siiya in madaxda koonfurta ay doonayaan in magangeliyo ay ka raadiyaan qabiiladooda maadaama dawladda federaalku ay sheegtay in wax afisa aysan lahayn madaxda ugu sareysa ururka al-shabaab xubnaha doonaya inay soo dhiibaan ayaa la sheegay inuu ka mid yahay afayeenka ururka al-shabaab Sheekh Cali Dheere iyo madaxa amniyaadka Mahad Karatay oo isku qoys ay yihiin taliyaha hay'adda sirdoonka ee qaranka NISA Mahad Salaad soo dhiibistan madaxda ururka al-shabaab ee ay doonayaan in magangeliyo la siiyo ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay guulo waaweyn oo taariikhi ay gaadheen gobollo waaweyn oo ururka al-shabaab sanadihii ugu dambeeyay ay maamulahayeen ay gacanta kaga dhigeen waxaana dawladda federaalku ay ka qaadatay go'aan adag oo ah in madaxda ururka al-shabaab ee baabiisay shacabka Soomaaliyeed sanadaha badan loogu baaqayay in ay joojiyaan dagaalka wada hadal la furo isla markaana diiday aan hadda wax wada hadal la galeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sheegay in wax wada hadal oo u furmaya dawladda federaalka iyo ururka al-shabaab uusan jirin dawladda federaalka oo laba u kala saartay ururka al-shabaab ayaa sheegtay in maleeshiyaadkoodu ay soo dhiibi karaan loona cafiskana uu u furan yahay balse madaxda ugu sareysa ayaan lahayn wax afis
doonaysa iyo wax wada hadala oo dowladda federaalka Soomaaliya ay la galayso. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo howlgal ballaaran qaaday 24 saac ee ugu dambeeyay ayaa soo bandhigay in ka badan 250 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo howlgalladaasi ay ku dileen. howlgalkan ayayna ciidamadu ugu magac dareen mid loogu aarahayo taliye ku-xigeenkii ciidamada commandoska danab ee shalayta la ku geeriyooday degmada Galcad ee gobolka Galguduud. howlgalkan oo saraakiishu ay ugu magac dareen in loogu aargudahayo taliyihii aadka loo jeclaa ee qiimaha badnaa ee guulaha waaweyn ka soo hoyay dagaalkii lala galay ururka Al-Shabaab ee gebi ahaanba gobolka Hiiraan ka saaray xarakada Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen in inta kun askari looga aargudahayo howlgalladani ay socon doonaan. saraakiisha hogaaminaysa howlgalladani ayaa dhinaca kale waxa ay xuseen inay howlgalladani sii socon doonaan isla markaana ururka Al-Shabaab la dhadhasiin doono xanuunkii ayna dhanasiiyeen sargaalkii mujaahidka ahaa ee ay dileen ee ay sida gaadmada ku dileen. sargaalkan ayaa horay uga soo howlgalay gobolada kale ee dalka Soomaaliya gaar ahaan bilihii ugu dambeysay wuxuu howlgal xoogan ka waday gobolka Hiiraan wuxuuna ka mid ahaa saraakiishii u dhabar adeegtay qaraxyadii iyo waliba weeraradii joogtada ahaa ee ururka Al-Shabaab ay gobolkaasi ku soo qaadayeen balse ugu dambeyn ka saaray guud ahaan gobolka Hiiraan. guulahan waaweyn ee maanta gobolka Hiiraan ay haystaan waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii koobnaa ee lagu amaanahayay isla markaana guushaasi lagu tilmaamayay inay iyagu gacantooda ku keeneen. asbuucyo ka hor ayaa sargaalkani uu halkaasi tagay oo uu ka qayb noqday howlgalladii halkaasi ka socday isagoo weliba cagta mariyay deegaano badan oo ururka Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen. sargaalkani oo ciidamada iyo weliba dowladda federaalka iyo xubnaha la soo shaqeeyay ay aad u jeclaayeen laguna tilmaamay shakhsi aad u degan isla markaana qiimo badan oo hadal macaan ayay ururka Al-Shabaab sabab ugu noqdeen geeridiisa. waana arrin murugo iyo tiiraanyo ku reebtay shacabka Soomaaliyeed iyo waliba ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. hay'adda sirdoonka ee qaranka NISA ayaa qaaday tallaabo uga sii daraysa xiisadii ka taagneyd gobolka Gado. taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka ee qaranka NISA qaybta gobolka Gado taliye Bakaal Kooke Allaha u naxariistee oo ururka Al-Shabaab ay qarax ku dileen ayaa horay loogu eedeynayay inuu awoodo markaasi aan ku habboonayn shacabka iyo mas'uuliyiinta uu adeegsanayay gobolka Gado iyadoo horay loogu eedeynayay in garoomada dadka ka soo dega iyo waliba shakhsiyaadka markaasi isagaan xukunkiisa iyo maamul ahaan la dhaxsanayn gebi ahaanba laga celin jiray oo laga tarxiili jiray garoonka ama loo diidi jiray inaysan ka soo degin. kadib geeridii taliye Bakaal Kooke Allaha u naxariistee hay'adda sirdoonka ee qaranka NISA iyo filla Soomaaliya ayaa soo magacawday taliye cusub oo lagu magacaabo Jamaal kaasi oo ka howlgala gobolka Gado. magacaabista taliyaha cusub iyo isbedelka ku dhacay hay'adda sirdoonka ee qaranka NISA qaybta gobolka Gado ayaa la filayay in isbedel fiican uu ka imaan doono uuna fasixi doono isku socodka mas'uuliyiinta safarkooda iyo waliba shakhsiyaadka markaasi ama mucaarad ama muxaafid ha noqdeen ee ka soo degaya ama ka soo jeeda gobolka Gado. taliye Jamaal ayaana gabi ahaanba ka joojiyay safar ay xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Gado ay ku imaan lahaayeen degmooyinka iyo deegaan doorashadooda oo dhibaato xoogan ay ka taagan tahay taasi oo iskugu jirta abaaro iyo waliba tabashooyin siyaasadeed. xildhibaanada laga celiyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka soo jeeda gobolka Gado ayaa sheegay inay tahay markii afraad isla markaana magacyadooda la siiyay diyaaradaha oo loo sheegay in aysan qaadi karin oo gobolka Gado aysan u qaadi karin xildhibaanadaasi iyagoo dhinaca kale la hadlay oo sheegay inay la hadleen taliyaha gobolka Gado ee hay'adda sirdoonka ee qaranka NISA Jamaal kaasi oo sheegay in amarkani uu ka soo baxay xafiiska taliyaha guud ee hay'adda sirdoonka ee qaranka NISA Mahad Salaad ayaana gabi ahaanba mamnuucay in xildhibaanadaasi ay ka degaan halkaasi. waxaa sidan oo kaleeto loogu diiday senator Fartaag iyo sidoo kaleeto wasiirkii hore ee amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ayagu markii dambe ka soo galay dhinaca beled xaawe ee xadka dalka Kenya kadibna olole xoogan ka bilaabay gudaha gobolka Gado kaasi oo ay ku shaaciyeen in dagaal laga bilaabayo Jubbada Dhexe isla markaana ciidamo ay halkaasi ku ururinayaan. maamulka Jubbaland ayaana arrintaasi si weyn uga biyadiiday isla markaana codsi u diray dowladda federaalka iyo waliba warqad si gaar ah ugu socota ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre taasi oo ay kaga codsanayaan in qalalaasaha iyo faragelinta laga daayo maamulka Jubbaland isla markaana ay sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta looga qabto mas'uuliyiinta isku urursanaysa degmooyinka gobolka Gado ee doonahaya gaal ay Jubbaland ogeyn inay ku soo qaadaan gobolka Jubbada Dhexe. mas'uuliyiintani ayaa dhinaca kale iyagana looga shakisan yahay inay doonayaan inay howlgal ka bilaabaan iyo abaabul ay ka bilaabaan gobolka Gado. maamulka Jubbaland ayaana loo malaynayaa in ay ka dambeeyaan mamnuucidda xildhibaanada doonahaya inay u soo safraan gobolka Gado. maamulka Jubbaland ayaana doonahaya in cid walba oo markaasi laga soo doorto ama ka soo jeeda Jubbaland ay ka soo degto magaalada Kismaayo oo daacad u ahaato madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid
ciddii iyaga aan soo marina ay u yaqaanaan qaswadayaal. waana arrinta hay-adda sirdoonka ee qaranka nisa ay gebi ahaanba xildhibaanada uga mamnuucday in ay soo gaadhaan deegaan doorashooyinkoodii iyo dadkii ay matalahayeen. ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa heshiis qarsoodiya ku gaadhay, islamarkaana madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ogolaaday halkii sano ee muddo kororsiga ee maamulka koonfur galbeed ay samaysteen. mucaaradka ayaana si weyn arrintaasi uga biyadiiday, kuwaasi oo markii hore filahayay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la safan yahay mucaaradka midowda musharaxiinta ee maamulka koonfur galbeed. mucaaradka ayaa arrintani waxa ay ku noqotay filanwaa kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka oo markii hore ay filahayeen in mucaaradka uu la safan yahay islamarkaana isbeddel ay doonahayaan ay la safteen madaxweyne cabdicasiis laftagareen, islamarkaana ay ku raaceen halkii sane ee muddo kororsiga ahaa ee laftagareen uu samaystay maamulkiisa. mucaaradka ayaana arrintani u noqonaysaa arrin fadeexad weyn ku noqon doonta rabitaankoodii iyo weliba dacwadihii iyo tabashooyinkii ay qabeen iyo codsiyadii ay u gudbiyeen filla soomaaliya ay ku doonayeen in garab istaag ay ka helaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo tiimka damu jadiid. laftagareen oo markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka garab weyn ka haysta ayaa u dareereen ciidamadiisu la dagaalanka ururka al-shabaab, iyadoo saaka ay guulo waaweyn ka soo hoyeen dagaal ay ka fuliyeen duleedka magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed. waxaana halkaasi ay ku soo bandhigeen in ka badan 10 ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo kadibna ay gubeen meydadkooda. beesha caalamkuna waxa ay digniin culus u direen madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo maalmo ka hor ku dhawaaqay gooni istaag maamulkiisa. beesha caalamka ayaana baaqa ay u direen saciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland ku sheegay in saciid cabdulaahi deni uu joojiyo kala furfurka khilaafka maamulada iyo sidoo kaleeto gooni istaagga uu ku dhawaaqay uuna ka laabta arrintaasi, iyagoo ugu baaqay in tabashooyinka uu qabo saciid cabdulaahi deni loo baahan yahay in uu keeno miiska wadahadalka, islamarkaana uu wadahadal la galo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya. beesha caalamka ayaa dhinaca kaleeto waxa ay uga digeen madaxda maamul goboleedyada in aysan ku dhaqaaqin wax kala qaybina, islamarkaana kala qaybinahaya sistamka federaalismka. waxa ayna baaq u direen dhammaan madaxda maamul goboleedyada oo ay sheegeen in ay u hoggaansamaan dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalka. awadayaal qodobadaasi ayaa barnaamijkeena ugu dambeeya tan iyo midka xiga intaan ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa ammaane allah.